halkan waa degmada Tuliguled waana degmo ka mid ah degmooyinka dawladdeegaanka Soomaalida ee hoostiga magaalada Jigjiga degmadan waa degmo taariikh mug weyn ku leh dawladdeegaanka Soomaalida waana degmadii uu ku noolaa halyeeygi weynaa ee Axmed Gure ilaa haddana ay ku siyaalaan goobihii uu ku noolaa iyo guriyihii masaajidadii uu galayay dhanka kale degmadan waa degmo taariikh mug weyn ku leh habka heerka wax soo saarka sida qabadinka sarreenka galleyga hadhuurka iyo waliba qaar kale oo badan degmadan ayaa waxa lagu xasuustaa waqtigii oo abaartu laysay Shiinaha iyo India inay laga caawin jiray ama se halkan looga daabuli jiray heeda qamadinka galleyda iyo waliba hadhuurka degmada Tuliguled ayaa noqotay goobta loogu dalxiiska iyo booqashada badan yahay dhawaan ay ahayd markii uu yimiday ama se uu ku soo degay Dr. Abiy Ahmed sidoo kale waxa isaguna si joogto u yimaada madaxweynaha dawladdeegaanka Soomaalida Muuse Maxamed Cumar isaga oo mar walba bogaadiya bulshaweynta ku dhaqan degmada Tuliguled isaga oo mar walba ku bogaadiya wax soo saarka iyo waliba heerka ay wax u soo saarayaan waxa iyaguna si joogto u yimaada ama se mar walba u dalxiis yimaada dhalinyarada ku dhaqan dawladdeegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga iyo daafaheedaba sidoo kale waxa iyaguna goobta yimaada ama se mar walba yimaada dhalinyarada wariyayaasha si ay uga qaataan barnaamijyada wax soo saarka iyo waliba barnaamijyada isla waqtigaas ku haboon degmada Tuliguled waxa ay 30 kiiloomitir u jirtaa caasimadda dawladdeegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxayna ka soo xigtaa dhanka kililka Oromia degmada Tuliguled waxay xad la leedahay kililka Oromia dhanka kale degmada Tuliguled waxa soo dhaxmartay wadada weyn ee ka timaada dalka Djibouti wadadaas oo ah wada ganacsi ayaa si toos ah u soo dhaxmartay degmada Tuliguled taas oo ilaa iyo tagtay magaalada Jigjiga dhanka kale waxa xad la leedahay Somaliland oo iyaduna ay ganacsiga xagga ganacsiga ay isweydaarsadaan degmada Tuliguled ayaa hadda isku diyaarinaysa martigelinta ama qaabilaadda shirka weyn ee BP shirkaas oo lagu qabanayo degmada Tuliguled gaar ahaan qabalaha kulule oo ah goobtii uu ku soo degay waqtigii hore ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed shirkan ayaa hadda waxa hogaaminaya waa Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dawladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdi kale oo aad u tiro badan ayaa dhawaan waxa la filayaa inay ku qabtaan shirweynihii weynaa ee dalka Itoobiya ee xisbiga BP su'aasha la isweydiinaya maxay tahay waxa ku soo biiray degmada Tuliguled waqti xaadirkan degmadan oo ah degmada ugu faaca weyn degmooyinka dawladdeegaanka Soomaalida oo intaas soo qarni jirtay maxay tahay waxa hadda ku soo biiray sidan oo dhan loogu danaynayo jawaabtu waa dhankaaga waxaan kaaga tagaya sidaa iyo amaana Allah waxa hoodan ay ku tahay qobay tuli lagu hubo qobay haruliyo galay qobay heediyo sare